aad u diyaarisid si wanaagsan. Ma rabtaa inay noqoto qof caqabado kasta iyo wax kasta ka hor imaada ayadoo ka bixi karta ama iska difaaci karta. Ugu yaraan kaligeed ay ahaanin laakiin adigoo garab taagan oo leh anaa ku garab taagan haddana gabdhahooda aad u dhibaateynaya mararka qaarkood is odhanaysid malaha mabayba dhalinba. Caruur badan bay dhashay eed kaligeed maaha. Soo dhawaada waa walaashin Filsan channelka dagaal socodsiin waa Filsan qurux channel. Waxaan wada maanta barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyadii inoogu socon jiray tarbiyadda caruurta. Ugu horeyn intaan bilaabin qodobkan ka hadlaya barnaamijkeena cusub waxaan subscribe ii saartaan videoga haddaad ka hesheen inaad like saartid asxaabtada la wadaagtid dad aragtid inaad wax ka faa'iiday wixii fariin comment waad noogu reebi kartaa insha Allah gambalelkana iska iloow si aad noqotid daawadayaasha ugu horeeya ee daawada barnaamijyada soo gelino. Soo dhawaada marka barnaamijkeena inoo guud galo waxa weeyaan barnaamijkii tarbiyadda caruurta ayuu qayb ka yahay. Barnaamijkan maanta inoo wado marka barnaamijku waxa weeyaan gabadhaada sidoo tarbiyadeyn lahayd hooyo. Ma rabtaa inaad gabadhaada tarbiyad wanaagsan aad ku tarbiyadeysid. Ma rabtaa in aad maxay ahaydey nolosheeda mustaqbalkeeda aad u diyaarisid si wanaagsan. Ma rabtaa inay noqoto qof caqabado kasta iyo wax kasta ka hor imaada ayadoo ka bixi karta ama iska difaaci karta. Ugu yaraan kaligeed ay ahaanin laakiin adigoo garab taagan oo leh anaa ku garab taagan haddana iyadoo ka bixi lahayd wax kastaba oo macnaha sababta ugu weyn iyadoo la iman lahayd. Ma rabtaa waxaad ku tarbiyadeysaa kalsooni iyo ixtiraam. Ixtiraam markaan ku leeyahay waxa weeyaan wax ixtiraami doontaa qof wal ka hor imaada wax ixtiraami doontaa aday ku ixtiraami doontaa qof wal oo ku xeeran bulshada ku xeeran cid kastaba ha noqotee bay ixtiraami doontaa. Kalsooni waxay ku kalsoonaanaysaa nafteeda waxay ku kalsoonaanaysaa aragtideeda waxay ku kalsoonaanaysaa waxqabadkeeda waxay ku kalsoonaanaysaa in iyadu wax kastaba qabsan karto inay hore isku marin karto in ay wanaag oo dhan samaysan karto. Waxaad samaysaa maxay ahaydey ma aha inaad tiraahdid aniga sidan baa igu soo koriyay ama sidan baa igu soo barbaariyay sidii baa ayadana ku sameynaya waqtigaaga buu ahaa ayadana waqtigan baa waqtigeedii diin baan leenahay ku islaama alxamdulillah ilaahay baa islaam naga dhigay diintan islaamkana waxay inoo sheegaysaa in caruurta tarbiyad wanaagsan oo diiniyana lagu tarbiyadeeyo hase ahaatee ma aha inaad macnaha aday ku samaysid inaad waayo nabiga cali salaatu wasalaam wuxuu yiri diinteenu waa nasteexo marka lagu leeyahay macnaha ma aha in qofka inaad wax kasta u adkaysid qofka inaad wax kasta ku adkaysid maaha taasi tahayna inantaadi weeyaan way kaaga dhowdahay dadkoo dhan adiga dhalay aad tarbiyaday waxaad arkaysaa hooyooyin gabdhahooda aad u dhibaateynaya mararka qaarkood is odhanaysid malaha mabayba dhalinba. Caruur badan bay dhashay eed kaligeed maaha ayaa macquul ah haddana sida iyada ula dhaqmayso waxay ka duwan tahay si caruurta kale ula dhaqmayso. Waxaa laga yaabaa wiil gabadh bay ku dhacday gabadh kaliya maaha waxaa laga yaabaa in culays bay saaraysaa gabadh kaligeed bay leedahay adigu sidan ahaw adigu sidan yeel aad maanta dhan hadal wanaagsan bay leedahay hadal wanaagsan bay ma ogtahay sida aad maanta gabadhaada ku barbaarisid in ayadana bartol ilmaha ay dhashay ku barbaarin doonto. Ma ogtahay saad maanta gabadhaada aad ku barbaarisid oo ku tarbiyadeysid in ay tahay mustaqbalkeeda oo dhan. Waayo waxa taadan hooyo macalinkeeda koobaad wax kasta ka aragtay ka arkaysaa dhaqan kastood kula dhaqantid iyo si walba ula hadashid waxa weeyaan tii qaadanaysa baritoole. Waayo waxay ku arkaysaa qodwa waxa weeyaan hogaamiye horkace oo wax kastaba lagaga daydo ayaa tahay. Marka waxaad martaa gabadhaada in wax la cafiyo oo hadii maanta cidii ku khaldanto ay cafin karto waxaad bartaa in ay iyadu maxay ahaydey hadii ay qof ku khaldanto in ay raali gelin bixin karto waxaad bartaa in ay maxay ahaydey hadii wax u baahan tahay qofka ay weydiisan karto
waxaad bartaa in ay haddii ay qofcidii wax weydiisanayso in ay waan hoo iyo mahaya labadaba odhan karto waayo dadkeena Soomaalida in badan waxaad macnaha aad ka arkaysaa dad badan oo ka xishoonayaanba ka baqanaya maya ma karo amba ma awoodo taasoo tahay isagoon qofkii awoodeynin oo adag tahay haddana waxaad arkaysaa in ay dad badan wax ayna qaadi karin culays ayna qaadi karin si saarayaan taasoo sabab tahay may baranin waxan ma awoodo waxaad moodaa dadkeena bulshadeena waliba inay gabadha u dhaleen shaqaale inay tahay shaqabo kii soo qabo waa la qabtaa anigu waa soo qaban jirnaa anigu sidan baa soo haanina anigu sidan baa soo haanina anigu adigu sidaad haanisa iyadoo maaha qasab adigu sidaad soo hanjirteen ayada ahaato wixii aan wanaag oo wixii wanaag ah waa halkiisa wixii diiniyana waa halkeeda laakiin waxa jira maamooyin waxaad arkaysaa kooranaysa dharkiiba xataa inantii weyn oo dhowr iyo toban sano jirta 13 14 15 jirta waxa la isbedelaan carruurtu oo sinal muraahiq baa la yiraahdaa amba sinal balaaqha waqtiga qaangaarka weeyaan waxa isbedelaya qofkan hormoonkiisa macnaha wuxuu ka baxaya yaraantii wuxuu galayaa weyni buu galayaa waxa sameynaysaa adigana adig wad ku bilaabsaa waa isbedeshay waad kibirtay sida baad noqotay qabanan ha sameeyeen sidan baad wax u gashatay mararka qaar waxaad arkaysaa dharkii baa loo kala doorayaa kalaradii qofku dooq u leeyahay haddii aanu gabadhu kaaga bixin iyadoo qaawan iyadiyo dhar aanu islaamnimadu raali ka ahayn xiran haddii ayna kaaga bixin u daa ikhtiyaarkeeda iska bixi masarkan sidan buu weeyaa kalarkaas soo gasho ma waxaan baad ku baxaysaa xiranaysaa ma bixaysid adoo waxaan iska soo bixiyo mooyaane tus in ay leedahay ray in ay leedahay ikhtiyaar oo wax dooran karto dharkeeda gashanayso dooran karto nolosheeda iyada iska dooran karta wax walba iyada dooran karta aan ka ahayn wixii wanaaga iyo wixii ray ku darsiyo waa xawiyaan waalidkeed baa tahay halka aad macnaha kale bedelkaad ka leedahay waxaan samee su'aal uga dhig weydii ka waran hadda sidan yeeshid sidan ka wanaagsan waxay warkaysaa in aad u diisay iyada doorashadeedii bas laakiin aad u tustay meesh sidii si ka wanaagsan aad tustay marka waxa laga yaabaa in ayba qaadato sidan ka wanaagsan waxay warkaysaa wanaag inaad tusaysid laakiin markaad maya kan adiraado waxay warkaysaa qof la xirxirayo qof waxay sugaysaa inta ku boodayso sida waxaan garanayaa gabadh waxay sameyn jirtay waalidkeed waxay ku oran jirtay hooyo waxaan baa rabaa inaan sameeyo may waxaan kale aan rabaa inaan sameeyo may sida kale aan rabaa inaan sameeyo may ugu dambeyntii waxay ugu jawaabtay okay bari markaan guursado ikhtiyaar baan yeelanayaa markaas baan waxa la yaalo waxa diidayso dhan aan sameeyay way aad u gaarsiinaysaa gabadhaada yarkaas tus adigoona may diidin tus waxa tiraahdo hooyo sidaas baad rabtaa okay waad yeeli kartaa laakiin sidaas waa laga wanaagsan yahay sidan baa ka wanaagsan wax iminka matalan oo kale diinta ka soo jeedaday tahay waxaad oran kartaa hooyo sidan baa diinteena inoo ogol hooyo sidan kale ka wanaagsan baad yeeli kartaa wixii soo diinba soo galaynin oo iska caadi ah oo sameyn karo haddana hadad u aragtid adigu in wax khaladan yahay amba aan ku fiicnayn oo kale waxaad oran kartaa saas baad rabtaa inaad sameysid hooyo sidaas inaad sameysid waxa ka wanaagsan sidan kale barayga ka waran kan ila eeg kaman aniguna hooyo ku hayaayo anigii ila wanaagsan adiguna xarajeynay inuu kula wanaagsanaado waa okay waa si wanaagsan maxay ahayd gabadhaada bar in hadii wax ka dhigto ku imaado dhibaato ku timaado waxba la soo kulmayba imtixaankii iskuulkii ku adkaaday ku dhacday amba way guursatay oo kale amba xilligii ninba u doonan tahay oo kale waxyaabo badan oo culeysya ku imiday marka kula timaado waxaad tiraahdaa sidan baa go'aan adigaas kale waxaad go'aanka qaadanaysid qaado fikir maskaxdaada ka shaqaysi sidaad rabtid inaad u sameysid aniguna waan kuugu garab taaganahay wax kasta baad adiga sameysan kara adigaas yeeli kara adaa diidi kara waxay talabaad dadkeena Soomaalida aad waxay uga liitaan ilmaha lama saaxiibaan lama sheekaystaan ma soo dhaweystaan khaasatan waqtigan aan ku jirno
intuu ilmahaagu adiga su'aal uu qof kale soo weydiin lahaa oo qof kale si khalad ugu fasiri lahaa ama qof kale la saaxiibi lahaa uu jar ka tuuri lahaa maxaa kuu diiday inaad gabadhaada la saaxiibtid soo dhaweysatid sidii laba hablood oo yaryar aad u sheekaysatiin dhibaato kasta oo ku timaada iyo wax kasta oo maanta soo aragta xataa farxadahaada ay kuu sheegto maxaa kuu diiday laana ma adigu maad soo baranin tii aad adigu aanad soo baranin baad rabtaa inaad iyadana kusii baratid maya gabadhaada markay qaangaadho dad majority Soomaaliyeena gabadha markay qaangaadho maxay haday waalidkeed ma oga laana uma sheegi karto way ka xishoonaysaa taasna maxaa keenay waalidkii iyo gabadhii ma laha xiriir oo ma maxay haday ma wada xiriirayaan oo sheeka kama dhaxayso oo saaxiibo ma aha isku ma dhawaa sidee wax ugu sheegi kartaa markaa waa inaad gabadhaada la saaxiibtaa waa inaad gabadhaada markay 9 jir ay gaadho waxaan ceeb maaha ilaahay baa ugu talagalay dumarka waana wax wanaagsan markaas la eego bisharaaxa waayo waxa sidaantiisa ilmo lama dhaleen hooyadu ma noqoteen gabadhaada hooyo ma noqon doonto marka bar gabadhaada nadaafada bar sidee waxaan haduu barito lagu ka imaado iskaga hagaajin lahayd bar soo dhaweey u sheeg sidan baa isku nadiifiyaa caadiyan isagoo taahay baa xataa bar aroortii marka la soo kaco sidan baa isku nadiifiyaa sidan baa la yeelaa tus inay nadaafad shakhsiyan ay leedahay tus ma aha inaad maanta dhan tiraadid kaale jikada soo gal kaale wax kari naatan barito ayaa soo dooni doona naatan ninkii sugaysaa baa ma aha inaad gabadhaada u tustid inay loo abuuray nin inay u shaqayso ma aha sidaas waxa weeyaan laba qof Ilaahay baa isku abuuray xaq bay isku leeyihiin nin iyo naag qof kastaba maxay haday mas'uuliyad baa saaran gaara qof walba mas'uuliyadiisa inuu ka soo baxo baa wanaagsan marka adiga waxaad u tarbiyaysaa gabadhaada inay mas'uuliyad saaran tahay oo mas'uuliyad hadhow wala ay saaran doonto markay reer yeelato intii mas'uuliyad ay ka saarneyd iyo intii wanaag ay qaban karaysa ay qaban karto laakiin ayna ahayn ina ay maxay haday waxaan tahay wax ku qasaba amba wax iyadoo saaran wax loo abuuray inuu yahay naakaale wax baro naakaale mid waxa soo galo kari naakaale tasi na guriga nadiif na beritoole seed wax u qaban beritoole yaa kugu fal beritoole beri ma sidaas waan aragnay in badan mooyeen gabdhuhu isku dhahaya gabadhan nin inay u shaqayso looma abuurin nolol kale way leedahay wax kasta oo qabsan kara way qabsan kartaa Ilaahay baa maxay haday abuuritaanka rag iyo dumar kala duway sax lama diidana laakiin waxa weyn way isku jirtaa marka hooyo gabadhaada si wanaagsan u tarbiyadee kalsooni ku tarbiyadee ixtiraam ku tarbiyadee wanaag ku tarbiyadee in xiriir leedahay ku tarbiyadee inay wanaag oo dhan qabsan karto ku tarbiyadee in ay iyadu shaqaysan karto wax isku filan tahay marka iskuul geenisid waxaad ku tarbiyadaysaa inay wax barashadan ay baranayso inay bertoole isku horumariso oo lafteeda wax soo qabsato marka ma aha in ay maxay haday wax kasta soo baratay marka bari la guursado inay guriga soo fadhiisato way fadhiisan kartaa taas ilma diidana hooyo haday noqoto arrinteeda inay korsato ilma diidana way haysato korsato fadhiisato laakiin waxa tustaa in ayadu wax kasta qabsan karto isku filnaan karto awood leedahay barnaamijkeenu ugu dheeraaday intaas baan rabaa inaan kaga baxo insha Allah barnaamijka xigeentaas kugu imanayno waxaan kaga tagayaa fi amaanillah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo gabadhaada si wanaagsan u tarbiyadee salaamu calaykum